saaka waa 14 Oktoobar 2025 sidaan oo kale maalin qurux badan ayay ku bilaabatay nolosha dadka reer Muqdisho gaadiidka isdhaafaya ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee ka socda hareerihiisa dadka doonaya inay ka raacaan gawaarida u kala gooshaya caasimadda iyo deegaanada ku xeeran kuwa u soo qada doontay maqaayadaha ama ka dukaamaysanaya iyo dadka ku cibaadaysanaya mawlucan oo ku dhex yaala Hotel Safari waxa uu ahaa jawiga maalmeed ee ka jira 14 Oktoobar 2017 gorsheegtadu waxa ay soo dul istaagtay 2 iyo qadar 50 daqiiqo oo doornimo waxaana jawigu isku bedelay sidaan meedadka shacabka ayaa meel kasta daadsan qiiq iyo uuro ayaa qariyay noloshii ka socotay halkan waxayna ahayd musiibo taabatay qof kasta oo Soomaaliyeed maalintii madoobaydo meedku daadsanaa imisa caruuro waayo yaabahood imisa caruuro waayo hooyadood كل نفس ذائقة الموت إن الله ما أخذه ولو ما أعضى وكل شيء عنده بأجل مسمى أنت اللي مطي أو قرحي 14 أكتوبر كل ما أتي إلهي ونحرس أنت ولي الإلدرن والله حنوصنا يسور له عن إلهي ينهم وعافيه يا 14 أكتوبر ماشي أنا أصحاب بدنا نوقف بعض إلهي ونحرس dad badano hadii 900 ilaa 1 qof aan meeshan ku tabayna ilaahay uu naxariiso samiramaan qoysaska ku dhintay ilaa ka gaarsiyo annagana samiramaan Allah naga sii asxaabtayna iyo saaxiibadayna walaalahayna faraha badnaa meeshan ku leeyahay 2022 dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Soomaaliya ayaa dejisay qorshe amni oo lagu xasilinayo caasimadda Muqdisho waxaan dhahnay annaga waxaa nooc amisom ah oo nooc atmis ah oo no United Nation ah dadkeena shacabkeenan aadnay shacabkeena waxaan dhahnay shacabow shabaab iska celin intii yarayd muddadii koobnayd annagana ma naan fariisane waxaan diyaarinay ciidamo ilaa iyo 10,000 oo askari gaaraya waana hubaynay oo qalabaynay ciidamadaasi wax qabadkooda ugu badan kow ee laga dareemay waxa kamid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho qayb military ahaan loo keenay baanu police military ahaan u adeegsanay oo ka dhiganay magaaladan ku wareejinay magaalada Muqdisho oo shabaabkii kuwa kale ay ku darsameen oo la yiraahdo ciyaal weero oo laga soo cararay kaaraan laga soo qaxay iyo yaaqshid iyo hulwaay laga soo cararayba ayaan ciidankaas keenay runtii ciidankaasi muddo kooban waxay ka dhigeen magaaladii ilaahay amarkiisa waxay ka dhigeen nabad amniga dawladda noo keen ilaahay ka sugo ilaahay aan ku maadina alxamdulillah ilaahay awoodiisu waay laakiin raga ka shaqeeyay oo noo keenay oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ay hogaaminayaan hawshaas keenay in xamar hadaad riyoon jirtay isdhihi jirtay goorme dhibaatada naga dhamaanaysa Soomaaliya ogaada gaar ahaan qurba joogay ogaada dalku waa amni amaan ilaahay fadligiisa waxaad arkaysaa ummadii iska ganacsanaysa habeenkii hadda xilliga hadda aan macnaha hadlayno waa 2 saac habeennimo taqriiban magaalada say u noo shabaad arkaysaa macnaha caadi ma ahan ilaahay fadligiisa waxay ku imaatay waa dadaalka dawladdan hadda meeshan waxa ka muuqato horumar waxa ka muuqda amni waxa jooga ciidamadii amniga waa meel 4 sano ka hor in maarta qofka mas'uulka uu ku lugay ee adkay maanta anagoo dibadda ka imaanay qurbaha ka imaanay meesha waa iskaga lugeynaa waxa ma hadda iskale ilaahay subhanahu wa ta'ala ajra ka siiyo booliiska gobolka Banaadir dhammaan hay'adaha dawladda cid walba oo qayb ka noqotay juhdi iyo dadaal xuraan iyo xog raadin baaris iyo baadigob ayuu istaageen haliyada aan ku horno waxaana la baabi'iyay shabakada Tirabeela oo qawaaritu ka hirgelisay caasimadda si ay u dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed feeljignaanta sare baarista xoogan iyo sidoo kale to hay'adka buuxa ay ku jiraan ciidamada ammaanka ayaa suuragelisay nabadda xasiloon ee laga dareemayo caasimadda waxaana ciidamada ammaanka ay si weyn ugu guuleysteen inay dabar jaraan kooxaha qawaarita al-shabaab ee qaraxyada ka soo gali jiray wadooyinkan waxay u taagan yihiin ciidamadan in ay ka shaqeeyaan sugidda ammaanka iyadoona si wanaagsan loo dhaqmayo shacabka caasimadda haddii 8 sano ka hor isgooska Soobe TM lagu qarxin jiray
maanta magaalada muqdisho mooto laba lugaadley qarax laguma soo gelin karo haddii daraad ah halkan xasuuq ka geysatay maanta adigan koox kuu soo qabanaynaa oo aan maxkamadaha ku horgeynaynaa siddeed sano kadib dhagaha dadka reer muqdisho waxa ay ka raysteen yaa dilay lama garanayo kooxo ubaysan ayaa gudaha u galay hotel hebel waxaana bedelay naacawda nabadda baabuurta cabdibilaahi xaragay noqotay walaalayaal beledku waa amni waa ammaan baabuurta iyo qaab darro u socodku yaanu cadowga noogu soo dhex dhuumanin bilihii la soo dhaafay bil ka mid ahaa jirto 30 maalmood oo dhalato dhacdo magaalada muqdisho hal incident oo security xumo aanu ka dhicin